waxaan rabaa reer maxaaseedow 1960kii bishii Juulaay ayaa Soomaaliya xorriyadda qaadatay Soomaa taariikh waxa ku maqasheen iyo waxaad u soo joogteen weligiin madaxweyne Soomaaliya oo Soomaaliyiin maanta waa kana umaleeyay waxaan madaxweyne ku-xigeenka waxa ka tagay umaleeyay waa nasiibkiin maanta horta madaxweynihii Soomaaliya ayaa inii yimid haynii yimaadeen inuu dhibaatada idila wadaagana waa idinku yimid raad shabaab ku joogaa raad shabaab raadkiisu ku joogaa dhibaatada idinku badanna waa shabaab hadda ka hor waxaa la yiri xilligii malaadiyada ka hor ayaa waxaa la yiri qolo ayaa markasta markii boqor la doorto ayaa waxa ceeshu ka guri jireen baa leeyahay ceesha biyo laga way jiray kii markii biyo la waayo la hoogo la baabo wala kala tagi jiray barigii damba la yiri ninkii markan la doorto ee ceesha biyo laga waayo waa la dilayaa nin walba waa ka cararay nin baa yiri aniga doorta oo boqor halay doorto boqor loo doorto bas meel kasta ay togay noqotay iyo biyo yaacaya kii biyo boqorkii biyo yaacay horta maanta waa idin jooga madaxweynuhu dadka halkan fadhiya reer maxaasi dekad male oo wada male oo airport male waana furin ilaahay soo abuuray furin ka badda way nasiib badan yahay reer maxaasi saaka mar hadaa la joogto wax badan oo ay mudnayd inaan niraahdo waqtiga ayaa loo diidaya reer maxaaseedu madaxweynaha Soomaaliya maanta wuxuu idinku yimid iyo waftiga uu hogaaminayo gacanta aad shabaab ku haysaan inaad gacanta kale ku dartaan oo aad labada gacanood isku la qabataan saasoo maanta idinku yimid aad iyo aad mahadsantiin salaamu calaykum waxaan ku soo dhaweynayaa dadka madaxdiisa way nasiib badan yahay reer maxaasi saaka mar hadaa la joogto wax badan oo ay mudnayd inaan niraahdo waqtiga ayaa loo diidaya reer maxaaseedu madaxweynaha Soomaaliya maanta wuxuu idinku yimid iyo waftiga uu hogaaminayo gacanta aad shabaab ku haysaan inaad gacanta kale ku dartaan oo aad labada gacanood isku la qabataan saasoo maanta idinku yimid aad iyo aad mahadsantiin salaamu calaykum waxaan ku soo dhaweynayaa dadka madaxdiisa